السلام عليكم waxaan ahay Nafisa Abdidoon maanta waxaan jecelahay balse yar oo kooban shirkadda Ombasif in aan idinla wadaago maxay tahay maxay qabataa maxay soo saartay iyo sideen uga faa'iideysan karaa intaba shirkadda Ombasif horta waxaa la aasaasay 2018 bishii July kowdeedii waxaana aasaasay ama fikirka koobaad iska lahaa nin muslim ah oo Aash Mufaarax leeyahay Aash wax laga soo gaabiyay Ashraf waa Ashraf Mufaarax marka ninkaas waddanka Falastiin uu kasoo jeedaa laakiin waa nin Amerikaan ah waddanka maaragta Maraykanka ku dhashay ku barbaaray wax ku bartay aabba ah waxa weeyaan halkaana uu deegaankiisu yahay markuu ninkaan fikraddan keenay wuxuu la wadaagay dad aad iyo aad iyo aad u fara badan oo waxa weeyaan uu siiyey shirkadda inuu founding members ama inay xubin ka noqdaan shirkadda ayuu u oggolaaday ama u furay fikirkiisuna wuxuu ahaa ama hadafka ka dambeeya ay Ombasif ahayd in dadka faqriga ah iyo kuwa wax haysta labaduba inay wax ka helaan Ombasif ama ay ka wada shaqaysan karaan markuu fikraddii keenay dad badanaa la qaatay oo xibin shirkaddii ka noqday la shaqeeyey la qaatay fursaddii 5 sano oo kaamila ayaana shirkaddan lasoo dhisaayey maantay ayaana ilaahay subxaana watacaala qadaray inay suuqa timaado oo kowdii bishii Sebtembar 2023 ayaa ma aragtay productigeedii ugu horreeyey la suuq geeyey markaan intaas uga soo taga shirkadda waxaa laga yaabaa shirkaddu maxay tahay waa maxay waxa ay gadaysaa inaad isweydiinayso shirkaddan waa information technology company ama warbixinta teknolojiyadda casriga ah waxa ayna abuurtay ama ay develop garaysay software waxaan loo yaqaana kuwan loo yaqaan waliba SaaS productiga ama software as a service softwareada shirkaddan ay samaysay waxa weeyaan maanta adduunka way ka shaqeeyaan ayagoo kale laakiin noocan waxa uu ku shaqeynayaa garaadka macmilka ah ama waxa loo yaqaano artificial intelligence-ga ayaa ma aragtay ay xoog ugaga horeeyaan kuwa kale oo la midka ah suuqa yaala productyaasheedoo kale haddaan ilaa 52 software ay sameeyeen waxaa ka mid ah video conferencingka ama kan maqalka iyo muuqaalka ah oo hadda aan videogan ma aragtay idinkugu soo gudbinayo oo kale waxaa ka mid ah emailkii oo maxaa leedahay omail owda wax laga soo gaabsho Ombasif albaabka omailka waxa weeyaan shirkaddan laga soo geli karo qof aan omail haysan ma soo geli karo shirkaddan Ombasif hadda Google haddaad rabto in aad wax ka baarto ama aad isticmaasho Google waxaad ku qasban tahay inaad haysato Gmail si aad ma aragtay ama emailkooda loo yaqaano Gmailka ayaad ku qasban tahay inaad haysato haddaad rabto inaad softwareadooda isticmaasho ama aad soo gashood wax ka baadho Google YouTube haddaad rabto inaad isticmaashid haddaad rabtid inaad isticmaasho meel kasta oo servicekooda ka mid ah waxaad ku qasban tahay in aad Gmail haysato sidaasoo kale Ombasifna waxaad ku qasban tahay in aad haysato omail si free ah oo bilaash oon cidina lacag kaa rabin ayaana lagu siiyey softwarekaas waxaa kaloo oo dheeri ku ah markaad shirkaddan iska soo diiwaan geliso waxaad isku diiwaan gelinaysaa waa free ma aha cidi ku lacag ku weydiin mayso horumaris cida kaama rabto si bilaasha ayaad isku soo diiwaan gelinaysaa adiga oo linkiga qof walaal ah uu ku soo diro adiga oo qaadanaya shirkaddana toos waad u tegi kadhaa laakiin markaad shirkadda toos u tagto waxaa laga yaabaa in aadan dadka Soomaaliyeed ee walaalaha ah oo markaas leaderska hadda sawirradooda iga dambeeyo oo kale inaadan fursad u helin in aad maaragtay ka mid noqoto gurbadooda ay kula shaqeeyaan webinarkeena wiiglaha ah oo xagga gadaale ka muuqda oo maaragtay jimco walbana maaragtay lasoo bandhigo in aadan u helin fursad inaad ka mid noqoto dadka ee kasoo qayb gala ama webinaradeen iyo gruubadeena yimaada laakiin xor baa tahay shirkadda inaad iska diiwaan geliso oo ayada toos ula dhiilgarayso laakiin waxaa kugula talinaynaa mar walba dadka Soomaaliyeed qofka linkiga kuu soo diray ama videogan kuu soo diray inaad dib ula xiriidho tiraahdo walaa linkigaaga si aan dadka Soomaalida uga soo mid noqdo marka shirkaddan kow waxa qofku uu iska samaysanaya wax keliya markuu qofka koobaad 240 uu dhiibo 240 adiga ayay toos kugu soo noqonaysaa oo waladkaaga ayay toos ugu soo dhacaysaa daqiiqadaasba waad la bixi kartaa
ama barartiyaasha kalaad ku iibsan kartaa ama ma aragtay sidaas ayaad maaragtay adigu saa rabta u isticmaali kartaa qofkaasna miyuu wax weynayaa maya exactly asaguna wuxuu haystaa fursaddii adiga aad haysatay oo kale asagana first customer 100% wixiisa saa iskale saasayna ma aragta ombasif kugu faa'iideynaysa taas waa waxa loo yaqaano direct sale-kaas marka qofka koobaad markii 100% gu siiyey wax alla iyo wixii ka dambeeya oo direct sale-ka linkigaaga adiga sida directiga u isticmaala ama shirkadu ha u geyso ama adigu u geyse 25% ayaad ka helaysaa dadka kale oo ku sii xigana macnaheedu waxay tahay qof kasta oo first personki 100% baa maaragtay lagu siiyey marka adigu business free baa tahay waxba shirkadii kaaga ma jiraan qofka ku sii xiga ee maanta linkigaaga sida directiga u qaatana 25% ayaad ku leedahay waa taasoo ah $60 marka fursadda waa direct sale-ka wax kaloo waxaa jirta la yiraahdo commissiono badan oo shirkadda ilaa 5 qaab oo kale wax uga helaysid baa jira waxaa jira wax la yiraahdo engagement reward waxaa jira maxaa la yiraahdaa group royalty wax la yiraahdo commission waxaa jira maxaa la yiraahdaa leadership commission waxyaalo aad u fara badan oo shirkadda aad ka helaysid ilaa 5 nooc oo dhaqaale ku helaysid baa jirta laakiin hada direct sale-ka maadaama shirkaddu ay soo bandhigtay already ay noo soo gudbisay daasway baan kuula sheer garaynaya laakiin kuwa kale waxaan kuula sheer garaynayn dokumentiga ayuu ku qoran yihiin mid walba iyo inta uu yahay iyo inta aad ka helaysid maadaama aan maaragta u haysan maaragta xaq inaan maaragta kusoo gudbiyo si babliga ah sidaa daraaddeed sharciga aad saxiixi doontid oo connectiga ayuu ku qoran yahay bit by bit haddii ilaha yiraahdo ma aha sharciga marka aad freega kusoo gashay aad saxiixaysid oo NDA-ga la yiraahdo ama soo gelidda albaabka shirkadda inaad soo gasho inay shirkadda aad u ogolaato inaad ecosystem ku ogolaato inaad ecosystemkeeda aad isticmaasho ood suuq geeye ama dib iibiye aad ka noqoto ma aha midka oo connecti wuxuu yeelan doonaa agreement gooni ah oo aad saxiixi doonti kaas ayayna ma aragtay detailska ee dhaqaalayaasha kale oo aad samayn kartid shirkadda kuugu qoran yihiin marka fadlan kuwaas ayaad akhrin doontaa laakiin waxaan kuu hubaa ilaa iyo 5 qaab in aad ombasif dhaqaale uga samaynaysid iyo kasii badanba laakiin midka koobaad oo fursadda koobaada ayaan kuu sheegay marka qofkii muxuu samaynayaa platformkii baad iibsatay dhaqaalaad si maalinla ah ama saacadla ah uga samaynaysaa platformka laftirkiisina waad isticmaalaysaa shirkadiina way kuu suuq geynaysaa adiguna waad suuq geysanaysaa waxaa laga yaabaa adigu inaad tahay qof aan doonayn inuu wax iibiyo oo raba aabe ama ganacsada biisiya inaad tahay adigu platformkii baad si maalinla isaga isticmaalaysaa asxaabtaadii ku casuumanaysaa kula sheekaysanaysaa ganacsigaaga online-ka baad ku wadataa howlahaagii laakiin shirkadii ayaad u idmanaysaa inay kuu suuq geyso ayaga ayaana customerkii kuu keenaya wax walba kuu qabanaya uma baahnid marka inaad adigu suuq geyso haddii aadan doonaynin walaaleel waxaan rajaynayaa shirkadda ombasif in aad qaabkaas uga faa'iidaysatid mana ahan qasab qof walba oo ombasif platformkeeda soo galaa inuu noqdo ganacsade uu ka noqdo ama dib u iibgeeye uu ka noqdo waa haddii adigu aad danaynaysid keliya si free ah linkiga kuu yaalla xagga hoose ama walaalka kuu soo dira videogan uu kuu soo diri doono iska diiwaangeli si free ah ecosystemkeena soo gal webinaradeenna walaalaha soomaaliyeed ay iga dambeeya bigjiradooda ay qabtaan maalin walba oo jimco ah kasoo qayb gal naga soo mid noqo fiirfiiri marka aad u aragto fursaddan inay tahay allaylaha mid aad ka faa'iidaysan karto go ahead haddii aadan u arkinna productyaasheena freega isticmaal nala joog see it macnaha adiga arag bal mustaqbalka waxaa dhaca I hope intaas inaan kusoo gaabiyo videogan aadnan fahamtay maantay shirkadda ombasif waxa ay gado iyo sida aad uga faa'iidaysan karto biidni illaahi tacaala intaasan kusoo koobaya walaashii nafisa abtidoono idin le walaaleel insha allah youtube-ka noo subscribe gareeya si aan u gaarno walaalo kale oo wanaag badan sidaada oo kale oo fursaddaana ka faa'iidaysta biidni illaahi tacaala asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu